waxa qarsoomay oo la waayay qoys ka kooban 5 qof waxayna u qarsoomeen si kadis iyo sabab la'aan dhowr usbuuc kadib waayitaankoodiina ciidankii waxay bilaabeen inay raadiyaan qoyskan waxaana la tagay guriga ay deganaayeen qoyskani Tony, come to the door. ciidankii markii ay gurigaas tegeen waxay ka heleen meydadkaasna waxaa ka muuqday inay dhowr maalmood yaaleen meesha waxaana loo qaaday meydadkii baaritaanka caafimaad waxaana la ogaaday in meydadkaasi ay yihiin hooyadii qoyskii la weysanaa iyo carruurteedii dabcan waqtigaas ay ciidanku guriga galeen aabbihii qoyskaasi isna wuxuu ahaa mid shoogsan oo isagana jidhkiisa dhib ayaa soo gaadhay sidaa darteed isna waxaa loo qaaday oo loola cararay markiiba cisbitaalka muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan idinkula wadaagi doonaa kiiska ninkan lagu magacaabo Anthony Todd waxayna isla ogaan doonaa maxaa ku dhacay qoyskiisa iyo qaabka ay ku dhinteen maxaana u sabab ahaa markii koobaad in la waayay qoyskan ninkan ay ku saabsan tahay qisadeen waxaa lagu magacaabaa Anthony Todd waa nin dhalashadiisu ay tahay American wuxuuna dhashay sanadkii 1975 ma jiraan wax badan oo laga sheegay ninkan carruurnimadiisii aan ahayn hal arrin oo ah in aabihii oo lagu magacaabayay Robert ay isbarteen gabadh xidhiidhkoodii ka dhaxeeyay isaga iyo gabadhaasina uu sii weynaaday ugu dambeynna Robert wuxuu go'aansaday inuu gabadhaas guursado laakiin waxaa jirtay hal dhibaato oo ninkan haysatay dhibaatadaas oo ahayd ninkani wuxuu lahaa xaas oo wuxuu qabay xilligaasuu gabadha kala jeclaaday Anthony hooyadii sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu ka takhaluso Anthony hooyadii si uu u guursado gabadhan kale uu jecel yahay wuxuuna lacag siiyay uu soo karaystay nin si uu xaaskiisa u soo dilo ninkaasina uu soo baxay wuxuuna soo fuliyay hawshii dilka ahayd laakiin ninkan dilaaga wuxuu ahaa mid ku cusub arrimahan dilka iyo waxyaabahaas khibrad weyn oo muu lahayn arrimahan sidaa darteed dilaagaasi markii uu sidaas u soo galay gurigii wuxuu arkay Anthony hooyadii oo guriga joogta iyo dhinaceeda oo ay fadhiyaan carruurteedii ahaa Anthony iyo inanteedii wuuna la beer jilcay arrinkan oo uu cabsaday hal mar ayuuna ku dhuftay Anthony hooyadii rasaastii intaa kadibna si toos ayuu meeshii uga cararay halkaa rasaas uu ku dhuftay ninkaasi Anthony hooyadiina may dilin sidaasna waxay kaga badbaaday Anthony hooyadii weerarkii lagu soo qaaday intaa kadib ciidankii waxay awoodeen inay ogaadaan ninkan soo weeraray gabadhan cidda uu yahay markii la soo qabtay ninkanna wuxuu qirtay cidda soo dirtay iyo in ninkeeda Robert uu yahay kuu soo adeegsaday inuu hawshan u fuliyo waana la soo qabtay markiiba Robert markana Anthony hooyadii way iska furtay ninkaas sidaasna waxay ku noqdeen Anthony iyo walaashii qaar la nool hooyadood dhibaatadaas iyo fowdada intaas leegna waxay dhaceen isagoo Anthony ilmo yar ah oo aan dhaafin 5 jir si kastaba ahaatee Anthony wuu weynaaday kadibna wuxuu galay iskuulkii noloshiina waxay ku socotay si caadi ah ilaa uu ka gaadhay Anthony dugsiga sare halkaasna waxay isku barteen gabadh lagu magacaabo Megan Anthony wuxuu jeclaaday Megan qaab waaliya sidoo kale Megan iyaduna waxay ahayd mid weydaarsanaysa isla jacaylkaas muddo inay saqaaneen xidhiidhkoodaasina wuu sii weynaaday si weyn ayay isu jeclaadeen labadoodiiba xidhiidhkoodiina wuxuu socday muddo dheer oo sanada ugu dambeynna labadoodiiba waxay go'aansadeen inay isguursadaan taariikhdu markay ku beegnay sanadkii 2000 ay si rasmi ah isu guursadeen Megan iyo Anthony waqtigaasna Anthony daadiisu waxay maraysay 24 sannadood Meganna waxay jirtay 22 sano si kastaba ahaatee labadoodii way isguursadeen noloshoodii guurka kadibna waxay u socotay qaab wanaagsan oo waxay ahaayeen lamaane isku faraxsan oo ku wada nool nolol aad u degan sidoo kalena arrimahooda dhaqaale waxay ahaayeen iyaguna qaar wanaagsan labadoodubana waxay ahaayeen qaar shahaado ka sita cilmiga caafimaadka therabiga waxayna si wada jira u furteen cisbitaal ka shaqeeya physical therabiga labadooda ayaana ka shaqeynaya xaruntan caafimaad goobtan caafimaad ay furteenna way guulaysatay si weyn ayna caan uga noqotay meesha ay deganaayeen iyo meelaha kaleba dadkuna waxay ahaayeen qaar uga soo safra oo uga yimaada meelo fogfog waa lagu kalsoonaa qaabka ay dadka u cilaajiyaan ee ay ugu cilaajiyaan xaruntoodan sidaa darteed muddo aad u yar gudaheed waxay awoodeen inay urursadaan hanti weyn waxayna iibsadeen wax ka badan hal guri sidoo kalena waxay iibsadeen gawaadhi noocyada qaaliga ah si kastaba ahaatee waxa socday sanadadii ilaa laga gaadhay sanadkii 2007 sanadkaas waxay dhaleen qoyskani ilmahoodii koowaad sanadkii 2010 waxay dhaleen ilmahoodii labaad
6 sannadood kadib oo ku beegnay sannadkii 2006 waxay dhaleen ilmahoodii saddexaad. nolosha qoysyada ay ku noolaayeen qoyskani waxay ahayd mid deggan. Megan iyo Anthony waxay u jeclaayeen si weyn carruurtooda, inta badanna waxay ahaayeen qaar israaca oo si wada jira u safra, waxayna wada aadi jireen beeraha iyo xeebaha iyo meelaha lagu ciyaarsiiyo carruurta. ilaa haddana xaalku wuxuu ku socdaa qaabkii saxda ahaa. qoyskanna waxay ku nool yihiin nolol aad iyo aad sugan, laakiin arrinkaasi ma sii socon doono. dhammaadkii sannadkii 2019 waxay go'aansadeen Robert iyo Megan inay sannadkaas fasaxiisa u dalxiisaan qaab ka duwan sidii hore. wayna ka tegeen gurigoodii oo waxay kiraysteen guri kale. waxaa la sheegay in gurigaas ay kiraysteen ay lahayd shirkadda Disney ee u samaysa carruurta meelaha lagu ciyaaro. shirkaddaasina waxay samaynaysay xaflad bilowga sannadka ah oo carruurta iyo dadka waaweyniba ay ka soo qaybgeli karaan, halkaasna ay ku qaadan karaan wakhti wanaagsan. halkaasayna ka kiraysteen guri, waxayna u kiraysteen gurigaas si ay ugu qaataan inta ay halkan joogaan ay fasaxa yihiin. qoyskani waxay u diyaargaroobeen inay galaan safarkaas dalxiis oo qaadanaya muddo 1 usbuuca. Anthony iyo Meganna waxay u sheegeen shaqaalahoodii kala shaqaynaya xarunta ay haysteen inay fasax yihiin oo ay ka maqnaan doonaan shaqada muddo 1 usbuuca. iyaga iyo ciyaalkoodiina way diyaargaroobeen, wayna baxeen oo waxay tegeen guriga ay kiraysteen. halkanna waxaa ka bilaabanaya qisada inta waalida. maalintii koowaad markay halkaas tegeen, Megan iyo Anthony waxay la soo xidhiidheen qoysaskoodii, waxayna u sheegeen inay yar xanuunsanayaan oo ay dareemayaan xumad iyo duray yar. intaa kadibna way jareen xidhiidhkii u dhexeeyay iyaga iyo qoysaskooda gebi ahaanba. bilowgiina qoysaskoodii waxay u maleeyeen in arrinkani uu mid caadiya yahay, waxayna islahaayeen Megan iyo Anthony iyo carruurtoodii waxay qaadanayaan dalxiis 1 usbuuca, sidaa darteed ma doonayaan inay cidna la xidhiidhaan muddadaas iyo inay cidi ka qasto dalxiiskoodaba. laakiin arrinkii wuu ka sii dheeraaday sidii hore. qoysaskoodiina waxay bilaabeen inay wacaan oo ay la soo xidhiidhaan marar kale. laakiin arrinka la yaab kale wuxuu yahay tilefoonadoodii waxay ahaayeen qaar dansan. Anthony walaashii ayaa waxay ahayd mid ka naxsan oo niyaddeedu aanay ku degsanayn arrintan, waxayna ahayd mid aad uga cabsanaysa walaalkeed iyo qoyskiisii. maadaama ay hore u sheegeen inay xanuunsadeenna waxay istiri malaa xanuunkii ayaa ku sii batay, sidaa darteed ay uga soo bixi kari waayeen guriga. waxayna dareensanayd in qoyska walaalkeed uu halis ku jiro, sidaa darteed waxay la xidhiidhay ciidankii oo ay gaadhsiisay warkii. I'm wondering if somebody can do a wellness check on my brother and his family. They've been really sick for probably like the past week and a half, and I can't seem to get a hold of them. ciidankii markii warkani uu soo gaadhay waxay isku dayeen inay la xidhiidhaan Anthony, laakiin sidaan hore idinku soo sheegay telefoonkiisii wuu dansanaa. ciidankiina way iska fududaysteen arrinkii, wayna iska daayeen markii ay arkeen telefoonkiisa oo xidhan. laakiin 10 maalmood kadib Anthony walaashi ayaa ku soo noqotay oo la soo xidhiidhay mar labaad ciidankii. Hi, I don't know who I need to speak with. I'm curious if I can have a wellness check done. I had actually called on December 29th, and I had an officer go out because I was concerned. My brother and his family, they had all been sick. markanna mid ka mid ah ciidanka ayaa baxay oo aaday gurigii Anthony, wuxuuna bilaabay inuu albaabkii iyo jaraskii guriga qaraaco, laakiin may jirin cid la hadashay ama albaabka ka furtay. intaa kadibna uu iska daayay qaraacistii, wuuna iska laabtay ninkii ciidanka ahaa. arrinkuna sidaas ayuu ahaa. 3 usbuuc marka laga joogo qarsoomistii ay qarsoomeen qoyskani, FBI ayaa la soo xidhiidhay ciidankii gobolka ay deganaayeen qoyskani oo ka dalbatay in la soo qabto Anthony, iyadoo lagu soo eedeeyay eedayn ah inuu dad lacag ka dhacay oo uu ka khiyaamay. ninkan waxaa ku soo baxay eedaymo kale oo ah inuu ahaa mid khiyaameeyo bukaanka u yimaada qaarkood oo si khiyaamo leh uga qaata lacag. sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay inuu bangiga ka qaatay lacag gaadhaysa $100,000 oo uu ku qaatay jeegag beena. sidaa darteed FBI waxay rabeen inay si degdeg ah u soo qabtaan Anthony. ciidankii waxay bilaabeen inay Anthony raadiyaan, waxayna ogaadeen inuu weli joogo guriga ay dalxiiska u tageen ay kiraysteen. koox ciidan ayaana aaday gurigaas soo gudaha u gashay si ay u soo qabtaan oo ay uga soo kaxeeyaan gurigaas Anthony. Tony, Todd! Police! Tony, come to the door! ciidanku waxay ahaayeen qaar guriga albaabkiisii qaraacaya wakhti dheer, laakiin wax faa'iido arrinkaasi muu yeelan. intaa kadibna waxay la xidhiidheen ninkii guriga iska lahaa ee ka kireeyay qoyskan, waxayna ka soo qaateen fure albaabka lagu furo. albaabkiina way fureen. marka ay sidaa u galeen gurigiina waxay heleen Anthony oo jaranjartii guriga dhex taagan,
wuxuuna ahaa mid ciidanka soo eegaya. markay sidaa u arkeenna waxay dareemeen in ninkani aanu caadi ahayn, waxayna weydiiyeen halka ay joogaan xaaskiisii iyo carruurtiisii. Anthony wuxuu ahaa mid u yeedhaya xaaskiisii Megan, laakiin umay jawaabaynin. intaa kadib mid ka mid a ciidanka ayaa hore ugu socday oo galay qolkii jiifka ee guriga, halkaasna wuxuu ugu tegay arrin aad uga yaabiyey. ninkii ciidanka ahaa wuxuu halkaas ka helay 4 meyd. meydadkanna waxay ahaayeen qaar isbedelay oo muddo meesha yaalay. markii baadhitaan lagu sameeyeyna waxaa la ogaaday in meydadkani ay yihiin Megan iyo carruurteedii 3 ahaa. sidoo kalena meeshii laga helay meydadka waxaa laga helay meydka aygaasna waxaa iska lahaa Anthony. si kastaba ahaatee waa la qaaday meydadkii waana la baadhay. halkaasna waxaa laga ogaaday inaanay isaga dhiman si caadiya, laakiin qoysaskan la sumeeyey ama la siiyey maandooriye kadibna la dilay. Anthony markii guriga loogu tegay wuxuu ahaa mid daalan oo ay ka muuqatay inay wax ka khaldan yihiin, waxaana loo qaaday oo la geeyey markiiba cisbitaalka. halkaasna markii baadhitaan lagu sameeyey waxaa la ogaaday inuu qaatay ninkani daawadan ayuuna qaatay oo lagu magacaabo Benadryl, waana kan sawirkeedu dawada. cisbitaalka dhexdiisiina waxaa laga ogaaday in Anthony uu qaatay xaddi aad u badan oo daawadaasa, waxaana halkaas ka caddeyd badnida uu qaatay daawadaas inuu doonayay ninkani inuu naftiisa gooyo. laakiin dhakhaatiirtii waxay awoodeen inay daweeyaan ninkan. kadib 3 maalmoodna Anthony caafimaadkiisii wuu wanaagsanaaday. markaasna ciidanka ayaa ka soo kaxeeyey cisbitaalkii oo keenay qolkii baadhitaanada. bilowgiina Anthony wuu diiday inuu hadlo ama wax uu sheegay ciidanka, laakiin waqti kadib Anthony wuu qirtay wax walba. wuxuuna uga warramay ciidankii wax kasta oo dhacay iyo sida ay u dhaceenba. wuxuuna u sheegay ciidankii in isaga iyo xaaskiisu ay waxyaabo aaminsanaayeen, waxyaabahaas oo ay ka mid yihiin in sanadka 2020 ay ku beegan tahay dhammaadka adduunku. sanadkii 2019 waxaa faafay cudurkii fayraska ahaa. arrinkaasina wuxuu ka dhigay inay sii xaqiiqsadaan waxyaabo ay aaminsan yihiin inay yihiin run. waxayna ahaayeen Anthony iyo xaaskiisu qaar baadhaya arrinkaas ah in adduunka dhammaadkiisu uu soo dhowaaday. ugu dambeynna waxay ogaadeen inay jirto nolol kale oo ka dambaysa geerida, laakiin si ay noloshaas kale ugu noolaadaan qaab qurxoon waxaa ka horeeya waxyaabo ay qasab tahay inay sameeyaan, kadibna ay naftooda dilaan si ay noloshaas dambe ugu noolaadaan qaab wanaagsan. She began watching these videos talking about the afterlife. We started researching, and then we started finding more about the world is coming to the end, the apocalyptic end, to avoid this, to all go together. Die together. Die together, that's correct. markaasna waxay go'aansadeen inay gooyaan naftooda iyo nafta carruurtoodaba. sidoo kale wuxuu sheegay inay jeclaysteen ayagooda isna inay u qaataan nolosha dambe, sababtoo aaday u jeclaayeen isaga iyo carruurtiisu ayagoodan. si kastaba ahaatee Anthony iyo Megan waxay isku waafaqeen arrinkaas, waxayna bilaabeen inay qaataan xaddi badan oo daawadii Benadrylka ahayda, oo ah daawadan idin muuqata. waxayna soo qaadeen dawadii bilowgiina waxay siiyeen carruurtoodii, laakiin dawadii may dilin carruurtii. Anthony iyo Megan waxay ahaayeen qaar eegaya oo la socda xaaladda carruurtooda saacado, waxayna ogaadeen in daawadani aanay wax dilayn oo aanay shaqaynayn. markana waxay go'aansadeen inay gacantooda ku dilaan carruurta yaryar. midi ayna soo qaateen mana sii faahfaahin doona sida ay u dileen, laakiin way dileen 3 carruurta ahaa. intaa kadibna waxay dileen ayagoodii isna, manay hadhin Anthony iyo Megan mooyaane. Meganna waxay ahayd waqtigaas mid daalan oo nafsad ahaan u burbursan marka ay sameeyeen waxaas. sidaa darteed waxay ka dalbatay ninkeedii Anthony in markeedii la gaadhay oo iyadana uu dilo, kadibna naftiisa uu gooyo isna. Anthony wuxuu bilaabay xaaskiisii Megan inuu iyadana dilo, wuxuuna soo qaaday barkin kadibna wuxuu ka saaray Megan wejigii, wuuna ciijiyey ilaa uu dilay oo ay ka dhimatay. sidaasna waxaa ka soo hadhay qoyskii Anthony keligii. isna wuxuu sameeyey intaa kadib wuxuu soo qaatay xaddi badan oo daawadii aan idin tusaya, laakiin sidaan halka hore idinku soo sheegay daawadaasi may dilin ninkan. wuxuuna sheegay inuu isku dayay dhowr mar qaabo kala duwan inuu naftiisa gooyo, laakiin uu awoodi waayey arrinkaas. dhammaan qaababkii uu isku dayeyna ay ka fashilmeen. intaa kadib Anthony markii uu qirtay dembigii uu galay, waxaa loo soo xidhay si rasmiya ninkan, waxaana lagu eedeeyey inuu dilay xaaskiisii iyo 3diisii carruura. laakiin waqtigaas fayraskii koronaha ayaa ahaa mid si weyn ugu faafsan adduunka, sidaa darteed maxkamadayntiisii way istaagtay muddo dheer. waqtigaas ay istaagtay maxkamadayntiisiina Anthony wuxuu bedelay hadalladii uu hore u yidhi.
wuxuuna bilaabay inuu sheegay inaanu isagu dilin qoyskiisa. markii hore ciidanku ay su'aalaha weydiiyeen ee uu sheegay inuu isagu dilayna uu waqtigaas ahaa mid xanuunsanaya oo aanu caqligiisu wada joogin, laakiin uu dib ka xaqiiqsaday inaanu cidna dilin. wuxuuna sheegay Anthony inaanu maalintii la dilay qoyskiisa aanu isagu jooginba guriga. markii uu guriga tagayna uu arkay xaaskiisii Megan oo carruurtoodii guriga ku dhex dishay. wuxuuna sheegay in xaaskiisu ay ku sugaysay guriga dhexdiisa. markii uu sidaa u soo galay gurigiina waxay isku dishay iyaduna hortiisa. wuxuuna sheegay sidoo kale waqtigaas markii uu waxyaabahaas oo dhan arkay inay soo wajaheen xaalado nafsiyeed oo aad u xun, sidaa darteedna uu ahaa mid la jooga guriga dhexdiisa meydadka xaaskiisa iyo carruurtiisa. waqtigaasna uu isku dayay dhowr mar inuu naftiisa gooyo, laakiin muu awoodin inuu naftiisa dilo. intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu dusha uga tuuro xaaskiisii dhammaan canaanta, isagoo sheegay in xaaskiisu muddooyinkii dambe ay si aad isu beddeshay oo ay ahayd mid ku fikirta afkaar qariiba oo la yaab leh. afkaartaas ay aaminsanaydna ay u horseedeen inay waxaan samayso. sanadkii 2022 Anthony waxaa lasoo hor istaajiyey maxkamadda. dabcan Anthony maxkamadda dhexdeedii wuxuu isku dayay inuu naftiisa difaaco, wuxuuna sheegay inuu beri ka yahay dembi walba, dilkana aanu wax xidhiidha ku lahayn gebi ahaanba. intaa kadibna wuxuu ku adkaystay in xaaskiisu ay tahay ta dembigan oo dhan geysatay, laakiin maxkamaddii iyo qaadiyadii meesha joogay kumay qancin marnaba hadalkiisa, waxayna u arkayeen in ninkani uu dembiile yahay, waxaana lagu xukumay Anthony xabsi daa'in aan weligii laga sii dayn karin. This was a personal catastrophe in everybody's life in my family, including myself. I maintain my innocence. I loved my wife. I loved my children. I was not there the night my children died. dabcan waxaan filayaa in kiiskan uu yahay mid iska cad. cidda geysatay iyo sida wax loo geystay waa iska cad yihiin, laakiin Anthony wuxuu jeclaystay inuu inoo matalo xoogaa daraama ah. aniguna ra'yi ahaan waxaan aaminsanahay in Anthony iyo Megan ay ahaayeen qaar heshiis ku ah dembigan dhacay, oo bilowgiiba ay rabeen inay dilaan carruurtooda iyo naftoodaba si ay ugu gudbaan caalamka dambe ay aaminsanaayeen. laakiin markii intii kale ay wada dhinteen la gaadhay Anthony markiisii, muu awoodin inuu naftiisa gooyo. sidaa darteedna wuxuu ahaa mid isku dayay arrinkan marar badan, ilaa ugu dambeyn ciidanka ay yimaadeen gurigii uu joogay oo lasoo qabtay. markii lasoo xidhay ninkan ee uu qirtay dembigan uu galay iyo siday wax u dhaceenna, qirashadaas koobaad ay ahayd mid dhaba oo runa, laakiin waqtigaas Anthony wuxuu ahaa mid weli ay ku jiraan afkaartii ku riixday ficilkan ay sameeyeen. laakiin markii waqtigii uu socday ee la dhaafay sanadkii 2020 ee uu xaqiiqsaday in wixii ay aaminsanaayeen ay ahaayeen been, adduunkuna aanu dhammaanay sanadka 2020, markaas Anthony inuu isbedelay oo afkaartii beenta ahaa ay ka duuleen oo caadigiisii ku soo noqday. markaasna uu bilaabay inuu naftiisa badbaadiyo oo uu been sheego, sidaa darteedna uu ku tuuray adaymihii oo dhan xaaskiisii Megan. laakiin beentiisaasi may socon, qaadigiina wuxuu u arkay ninkan inuu dembiile yahay, waxaana lagu xukumay ninkan xabsi daa'im. adiguna igula wadaag daawada dhanka hoose ee kommentiga aragtidaada iyo waxaad ka odhan lahayd qisadan. intaasi uuna ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. haylooban hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, sabskaraybna saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsan tahay.